ra'iisul wasaaraha dalka Holland Mr Rutte oo waraysi siiyay warbaahinta dalka Holland ayaa sheegay in dadka aan rabin inay ku noolaadaan dalka Holland isaga laabtaan warkan ka soo yeeray Mr Rutte waxa aad uga xumaaday dadka soo galootiga ah oo ay waliba Soomaalidu ka mid tahay gudoomiyaha dalada ururada Soomaaliyeed ee magaceeda marka la soo gaabiyo loo yaqaan Ifsan mudane Cali Cabdi Waare oo aan ku booqanay xafiiskiisa magaalada Amsterdam ayaan waxaan wax ka weydiinay warka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Holland cabdixakiin adiga iyo telefishinka Somali Cable aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin su'aashaad i weydiiso ahayd warkii ka soo yeeray Prime Ministerka ama ra'iisul wasaaraha wadankan oo ahaa cidii wadankan aan ku faraxsanay wadankeena ha nooga tagto waa runta arintaas maanta joornaalada ayaa aad uga hadlay waliba bogaga ugu horeeya ay ku soo baxeen arintaasoo runtii anagu aan u arki karnay inay tahay arrin la xiriirta doorashooyinka wadanka ka dhici doona bisha Maart ee sanadkan oo lagu dooran doono Prime Minister lagu dooran doono baarlamaankii wadanka iyo Prime Ministerkan halka uu ka soo bixi doono in arintaas runtii xisbiye aad u fara badan sida la socoto wadankan ayaa ku tartamaya marka xisbiga hadda uu ka soo jeedo Prime Ministerka wadanka ka ah Rutte xisbigiisu runtii waxay aad uga cabsi qabaan xisbi kale oo waxa jira leeyahay PVV oo aad cunsuri u ah kana hadla dadka muslimka ah iyo ajnabiga had iyo jeer marka xisbigaas ayay ka baqayaan inuu ka codad bato sida darteed ayaan waxaan dhihi karnaa warkan waa war la xiriira waqtiyadii doorashada oo soo dhow oo ay doonayaan in xisbigaas uusan ka codad badin waxyaabaha uu yirina waxa kamid ah uu ka hadlay tusaale ahaan dhaqanka dadka uu yiri waxa jira dad fara badan oo jidka qashin ku tuura waxa jira dad fara badan oo gawaarida suxun u wada iyo dadka soo galootiga ah oo cusub dadka laftigoodu wuxuu yiri waxay si qalada u isticmaalaan xornimadii aan siinay marka runtii arrimaha noocaan uma arrimo naga cusub waayahan dambe runtii aad iyo aad ayaa dadka muslimka ah iyo dadka ajaanibta xisbiye siyaasadeed oo codoon ah ee aad iyo aad uga hadlaan marka waxaan u aragnaa arinta la xiriirta wax macna oo weyn oo ay sameynayso malaha sidaad ogtahay wadankan siyaasadiisu waa iskaashi oo hal xisbi oo ku guuleysan kara kaligiis inuu wax sameeyo ma jiro taalaftigeeduna marka qayb ay ka qaadanaysaa oo cabsi weyn oo sidaas ma jirto waa war doorashadaas la xiriira mudane Cali Cabdi Waare sidoo kale waxaan wax ka weydiinay bal arintan iyo waxa ay sallan ku hayso horta waa runta oo arintan waxay si gooniyo u taabanaysaa dadka ajnabiga ah dadka muslimka oo anagu aan kamid nahay sababtoo ah arintan laftigeeda waxa uu ka dhawaajiyay in uu jiray qof muslim ah oo shaqo ka doontay shirkad leh basaska lagu qaado gaadiidka dadweynaha marka ninka markii uu shaqadii doontay waa loo diiday sababtoo ah waxa la yiri ma ogolid inaad haweenka aad gacanta ku salaantid shaqadii maadaama loo diiday ninkaas wuxuu kaga dacwooday guddi qaabilsan xuquuqul insaanka oo madax banaan sida darteed guddigii waxay arintii gartii ku siiyeen ninkii shaqada doontay yireen wadankan nidaamkiisa ka jira qofkan ama ninkan xaq u leeyahay inuu gacanta u diido taa laftigeedu waxay ka xanaajinaysaa dadka aan jeclayn muslimka dadka aan jeclayn ajnabiga taa lafteeda Prime Ministerku soo qaatay marka anagu runtii wadankan aan deganahay wax walba oo ka dhacna waa la soconaa haday noqon lahayd arrimaha siyaasadda iyo dadka muslimka ama ajnabiga si loo cunsuriyeeyo marka waxyaabo anaga laftiinu aan dareen u leenahay waaye waxyaabana soo gaarana way jiraan oo mar walba aan dadka aan maaragtay aan ku u sheegno ama aan ku dhiirigelino in arrimaha noocaan oo kale ay ka dacwoon karaan oo ay jiraan institutionada adul ugu dambeyntii gudoomiyaha dalada Ifsan waxa uu dadka Soomaaliyeed ugu baaqay inay gacmaha isqabsadaan meel kasto ay joogaan wuxuuna ka codsaday in dadka abaaruhu halakeeyeen ay u gurmadaan runtii dadka Soomaalidu wadankan way degan yihiin waxayna degan yihiin magaalooyin kala duwan marka mar walba waxaan kula tali lahaa inay noqdaan dad wadanka ay degan yihiin waa marka koowaad isku day inay luqadda ay bartaan in haddii shaqo ay heli karaan inay shaqaystaan caruurtooda tarbiyadooda inay maaragtay ka shaqeeyaan ilmaha Soomaalida laga caawiyo waxbarashada iyo inay noqdaan dad isku xiran oo iskaashada dhibaatada wadanka ka dhacaysana sida abaaraha iyo daadadkii wixii la midana dadka walaalooda ay ka warhayaan oo wadanka aan hilmaamin cabdixakiin cabdi ismaaciil Amsterdam Holland